حكيت شرت مركي كاتر مد حدول كل فنيسة أنا كوي أنا يسي أجي 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 الله ناكتو نيكا تشعلا ورناكتو نيكا تشعلا كاجل وحال شيء فيلم مركي مترس كوتش كوتش هذا هي سبيشال هاستا يلركي هاي ديوانا شاروخ خان جلتانك هاستا مركي كوكو تشرين طبعا هاستا سنا حلقو قبتي جزيرة اللي يراهدو مروشيس واحد عضي إن باسكيلة مركا أي وضعان قيبت أي باسكيلة وضعان أيضا كنترولك وكلمة كدبنا أي مضحد وكل فنايسو سيح ولي بقول فنايسو حسوستنا أي وايسو كدبنا حسوستي أردن يعني قبل قد وسوا حيسا معنا سكر نقنسا لا هو حكريه كسب حيا أجي الله أجي على كاجل قرقاسي يدخل السنة إله بيقول قرقا مارته رير أجي دف كان يدخل السنة 5 سنة كان سنين كتبنا وكويس كورسنا 1999 ولا لبدان قف شعلها ولا بيض سي شعلها وإلا إمك لبض عاد أجي مركا شايتو أيها حكوا بيجنايد لحيلا تنك سنة جرود ودي معنا جورك وحكوا سووركتي لحيلا تنسنو ولي بحال الشيء إن the of course ومرة أنا كسر شيء بهيد ودي دنا لكن إذا كم بضح دكتني كان إني كورسته gurigan waxay ku dhigan tahay xaflad yar oo xaflad gaabi ama xaflad faqiireed hadda xaflad faqiireed bay guriga ku dhigatay iska familka xaflad familku bay xaflada u dhigeen arooska شاروخ خان بالغيري مهندي حليادي مارتي هرودي إحنا لو مرني حفلة لبا حفلات باجرة مارتي هندي ده تنتي كبر لسيد عكية يو مهندي بالغيرة ده يتنكلي عروسك marka taa hore waxa la yiri Shaarukh Khan baa wixii ka soo qayb galay isagoo gacanta ku haysta Aryan Khan inankiisa yar ayuu ka qayb galay ayaa la yiri aroskeeda ama xafladeedaas asxaabteeda qiimo badan maadaama sanad guuradoodii tahay ayaan intaa soo qaatay xusida mudan inay baaskilad ay ka dhacday Afrika ku jirta dhexdiisa dabadna xusuusta ay ka luntahay xitaa caanqow dhan uu dirtirmay maalmo dhan nasiimo iyo waqti hadana ay deelo misay badan oo finka loogu talagalay markii hore laakiin nasiib wanaag iyaga finka maamulayay maadaama inaan yar ahaa karan oo finka iska lahaa iyaga caawinayay Shaarukh Khan iyo Kajal oo saaxiibkooda rumo ahaa halkaas aan iyaga ka gudbaynaa bartoga barnaamijkeena aan u galno asxaabtayda xagga TikTok ayaa waxay iga soo mishin garanayseen labadan shakhsi oo la kala yiraahdo Tara iyo Adarjan oo ahaan jiray lamaane aad iyo aad isugu macaan sokortiisa wita isugu basha isku asi kale xukuma garatide muddo 4 sano oo dhanna dhuuxa iyo dhiigga wada qaybsanayay runtii qiso lala yaabay ay ku kala tageen oo yani hadallada ka soo yeedhay inanka Aadar waa hadalla illa imika la isweydiinayo sidaa darteed baa waxay keentay in Ranbir Kapoor mar walba isaga lagu soo dhajiyo oo dhaga hadal iyo tubaraac mar walba hawada loo mariyo iyadoo marka aad iyo aad loogu soconayo reer Kapoor su'aashaas weydiinta mudan baa waxay tahay reer Kapoor iyo inankan maxaa iska galay xageena iska soo galeen dad badan oo ku wareersan waan arkay inankan horta waxaa dhashay hadaan ka dabageeyo Rima oo la dhalatay Rishi Kapoor iyo Ranbir Kapoor dhalayna Raj Kapoor yani waa wada reer oo aartay ka duuli jiray reerka eeg isaga waxa dhashay Aadar waxa dhashay Rima Kapoor Krishna iyo Karina waxa dhalay Ranbir Kapoor Ranbir Kapoorna yaa dhalay waxa dhalay isna sheeg isna Rishi baa dhalay Ranbirna iyaga laftigooda Krishna Karina iyo Ranbir aart kama maqna waan yaabanahayba Kapoor xitaa art kama maqnaan reerku miyay ka fuuxsan jireen talo art waa Aadar xitaa artaas kama maqna laakiin waxa la yaabaa wada raac bay reerku hayeen marka waa ilmaabti ruma ay isku yihiin laba walaala macnaha ama saddex walaala saddexdan kala dhalay sidaa darteed bad arkaysaan in mar walba la isugu soo dhadhajinayo inanta horta muxuu ku sameeyay inanta isagoo 4 sano oo dhan la socday ayuuba iska soo jaray waxa la horta waa la isku xantay ogowna markii 2019 isbarteen sanad dhan baa la isku xamanayay 2020kii
ayay shaaciyeen waliba xagga iyo Instagram-ka inay isjecel yihiin haye sidiiba si fiican wada socdeen xaflada hadday tahay party hadday tahay meel kasta event hadday tahay meel kasta ul iyo dir ayay isku hayeen labadan shakhsi kadib markii waxa la arkay inay kala tageen wala shakiyay dadkii daba galay dabadeedna waxba la arkay ninka farantigeli sameynaya ninka gabadh leh adduunyada ugu jeclaa aleexa la yiraahdaa inantana marmar waa la isku arki jiray laakiin waxa la mooday jiray walaaltinimo iyo saaxiib caadiya sho gabadha sokorta sibiti isku hayno inantana wasi dhab u jeclaa wuxuu ku leeyahay isaga soo qorayba yani noloshayda wixii aan sameynayay waxa iska ahayd waqti lumis laakiin noloshayda waxa loo ugu xidhnaa noloshayda waxay loo ugu xidhnayd gabadhan la yiraahdaa aleexa ayaa loo ugu xidhnayd wuxuu ku leeyahay 20 years yani 20 sano ayay isugaysay 20 sano ayay isugaysay inaan nolol wadaagno hadda waa 20 ilaa ay carruurnimadan jeclaan buu leeyahay yani wasla soo kornay jacaylkaygu waa la soo kornay jacaylkayga laakiin waa u qalantaa buu leeyahay yani hadda xilli wanaagsan oo munaasib ayaan isalnay deelantaas uu imika guursaday marka dadkii iyo asxaabtii midiyaha ayaa ku kacday ay iyo aflagaad iyo afxumo ayay hawada waxaan ku yiri uga qariyeen kaas iyagoo leh awal bareerka buur baad ahaydeen maala yacni ba ahaydeen hablaha sida loo sharfo meedan aqoon way rambirka buur baan garanaynaayo dibika baadi konte dhimashay ka soo noqotay inta markuu qalbigeeda milixda ka dhigay tayar marka taara markay ka hadlayso familkiisa xitaa yani wallahi bid xanuun yani xitaa waxa la yaabay khaaninimada inta lagu ku sameeyay yani wuxuu leeyahay waa waqti lumisba dadkii maxay u fahmeen markii wada iska cad waa hadal iska cad yani taara socodkayga iyo jacaylkii waxaad moodayseen waxa kama jirin waqti lumis baa hadda waa gabadhu heerkooda u geeyay heerkooda waxaan ku yiri ay soo dhaweeyeen oo reerkeedii ay isjeclaadeen oo ay isdhex galaan oo ilaa imika ay lahayd iyada heerkooda يعني سئي جعلستان يسئي شو دويسيد إنتودي يعني إنتي إنكودو قبي أم كورسن لها إنتي صدقوا هاي أنا مصدقوا هاين يعني حرير إلا هيرك قاعد كلها وقت المسبوها وحلية بيها تاسع ولا يا أبولي بليتلا إن مركا ولي بليت وحكلي لو تنسى ناقص سوق سافر سنة إسك يو أو حنقولي أنا هذا إسك عبي هسكو قلدنا بوير لا هسكو قلدنا تارا وكحمة ولا قلبي قاعد شوي تاير حتى نلوش ندب وقول نقولنا هذا بس قال لا تنشر لماذا واحد كسب لو ضيّد حاجة يشوه يده ولي الشو اللي أورنشري أو بيك شو أهايو بيك بدا بوم اللي أورنشري اللي بده كنا يتبنكي كدبنا سيت كوم channels كأي فيلم وصو صارتي يوي جيسي ولا بده كنا سيد يتبنك لكن حاجة بولورك وحيسب في عن أصل دقتاي أم فيلم كده جوهري دمس كترنا شاشة الله صاري وحو أها فيلمكي Student of the Year 2 oo ananiya banday ayaa kula jirta iyo Tiger Shroff filmkaas xitaa waxay ku qaatay abaalmarinta loo yaqaan Season Award oo female debut ahayd ama adishada markaa aflaanta ku cusub awardkaas ayay ku heshay waliba filmka markii matashay 2019 ku darso hadana waxay matashay filmkii cajiibka ah oo aydan marnaba ciyaal hindiyo aydan ilaawan filmkaas film kalmaha waa marjafan filmkaas inaba caadi maahayn ayay 2019 labada film oo soo wada baxay kadibna waxay hadana 3 film israacsisatay 3 film oo iyaguna cajiibkooda ahaa inkastoo laba ay ahaayeen Tadab 2 iyo Hero Panty 2 iyo Egg-Fillion 2 laakiin wada koobi 3dan boo filmba ku yani labadan kale waa qaybii labaad taxanaha Tadabna waa film koobi iyo xaga iyo koonfurta laga soo koobi gareeyay 3 film oo cajiib laakiin iyaga laftigeeda lagu amaanay ayay matashay 2022 kadibna hadana qaldana filmkeeda ugu dambeeyay Apurva buu ahaayo 2023 ayuu ahaa isagana wuxuu soo baxay waa aadar jaan 2017 qaayda baad filmkan ayuu ku soo baxay iyo filmkii kale Hello Charlie kale waa actor cusub 2017 dhawaab soo baxayba marka inanta hadda qalbigu milixda ka dhigay si kale kuma garatid si daahir ya shamsa ayuu wuxuu yiri wixii aan sameynayba all I did was time pass يعني wuxuu yiri wixii aan sameynayba 4 sano wax ka jira hab yaraatay ma jiro macna jacayl dhow mu jiro riwaayad bay aan xagga ka hayd oo kala bad hadalka soo dhigay waa inaag baba isugu 20 sano sida qof kale u jeclaan kara weeye
بسم الله ويدا على ضد بدن وضد كله حرير لا ودد كلنا وقت لمس وطن هاي سبضنا هذا وسكتشر وسكفهم قف كحرير كل الليدين جدد كيس اسكهوبية يا أصحابتي تقيمة بدنا ديت شعلان هندي إنك سوحي إن شاء الله تعالى